Somalilano arowday dalko xeeriyo dastuurre dadkuna xamdiye bajoogo xamar layga daari maayo Somalilano arowday dalko xeeriyo dastuurre dadkuna xamdiye bajoogo xamar layga daari maayo حنوكي ما للاوين حسوتي لدى مقورين حنوكي ما للاوين نكي إسرائيل يوم أسوق دبيالي مينو نكي إسرائيل يوم أسوق دبيالي مينو أنا محمد دوري مينو ما نوقيت مينو شكل لبدولة دوريا حدود بانا قاد حيريا أنا محمد دوري مينو ما نوقيت مينو شكل لبدولة دوريا حدود بانا قاد حيريا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داوديال meel kasto aad nagala socotaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku eegi doono dadweynaha ku dhaqan caasimadda Hargeysa oo banaanbax ballaaran isugu soo baxay beerta xorriyadda magaalada Hargeysa kaasi oo ay dareenkooda ku muujinayaan inay ka soo horjeedaan hadaladii ka soo yeedhay maamulka taagta daran ee Muqdisho waxaana dadweynahaasi soo baxa ballaaran ku sameeyay caasimadda Hargeysa kala qayb galay mas'uuliyiin ugu horeeyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland barasaabka gobolka Maroodijeex duqa caasimadda Hargeysa xildhibaano ka tirsan aqalada wakiilada iyo guurtida barnaamijkuna waxa uu dhacay sidan ee daawasho wanaagsan waxaan leenahay belbela Hargeysa waddanka Soomaaliland la yiraahdo 1960 gabadh isku darsanay partition of Africa bergi la qaybsanay baa la kala qaybiyay iyaga Talyaani baa xukumayay innakana British English baa xukumayay xuduud baan kala lahayn xuduudkan kala lahayn ilaah baa inoo kala sameeyay oo inoo kala qaybiyay beriga Afrika la qaybsanay baa la kala qaybiyay shan Soomaaliyeed baa jiray shantii Soomaaliyeed waxaan ka mid ahayn tii ugu horeysay ee istiqlaalka heshay 26 June 1960 innakoo wanaaga Soomaalida jecel oo walaalaha jecel oo dadku isku yimaadaan jecel ayay ku dhawaaqnay Soomaaliland dawladnimadeedii ayay ku kala dooranay waxa dadana oo afbaranay aan isku dhaqan haynba oo la leeyahay Soomaaliland isku tiimay la dooranay marka walaal waxa weeyaan wixii naga soo gaadhay waa weeyday shalay xaafadda Axmed Dhagax waxaan ugu tagnay inta soo meeyo aasoo xabal walaaladeedii xaafadda kale gortana waa ugu tagnay wali lafahaygii baa sii taagan waan kala quusanay qowm malaada walaal Muqdisho ma tuuro waan tuuray hadday naf leeyihiin farmaajo hadduu naf leeyahay guriga ku xiga ma xukumo horta bal inuu Muqdisho mideeyo uu xukumo ayaa la haboon matii awowgii adeerkii ayuu doonay inuu kala dhabeeyo berigii afeeni jiray wuxuu ku dhooba maray buu yiri waqooyiga isaaqan waxay goosanayaan buu yiri markii waqooyigu berberay goosan doonana ogaada wuxuu waakay waxyaabaha soo socda buu waakay inuu xumeeyo waakay walaal Soomaa tuura oo leenahay Soomaaliya ha noolaato dawladnimadeedu ha noolaato walaalayaal halkan waxaan isugu nimid saaka isku soo baxan ballaaran inaynu ku muujino dareen shacab diidmadeena aynu ku diidanahay koonfur iyo kala tageenni aynu kala tagnay Soomaaliya oo aynu ku muujino dareenkeena inaynu taageersanahay go'aankii berbera lagu gaadhay heshiiskii lagu gaadhay saddex goosoodka aynu taageero walaalayaal
waxaynu u sheegaynaa somalilan kuma imanin hees somalilan kuma imanin hadal walaalayaal somalilan waxay ku timi go'aan shacab bay ku tigso allahu akbar somalilan waxay ku timi dareen shacab waxay ku timi iyadoo dhiigga loo huray bay ku timi walaalayaal waxaynu ognahay inta afaha hargeysa iyo dalkeena oo dhan meel walba ay ku aasahiin raggeenu inay lafihii raggeenu ku aasahiin baynu ognahay waxaynu maanta diyaar u nahay in aynu kaga jawaabno sifo kasta oo ay nagu qaadanayso inaynu kaga jawaabno diyaar u nahay waxaynu ognahay qof kasta oo inaga mida inay soo gaadheen hagardaamooyinkii iyo dhibaatadii uu ku hayay dulmigii iyo taliskii taliska ahaa ee koonfureed walaalayaal markaynu eegno waxaan odhan karaa aniga ugu yar qofkay ka soo gaadha hagardaamadu waa kaa nabaradeed iyo xabadihii waa kuwa xabadihii iyo nabaradeedu waa kuwa walaalayaal waa kuwa weeyaan waxaan u sheegayaa shacabka somalilan waxaan u sheegayaa inaanay somalilan hees ku iman nimanka soo hanjabaya ee baarlama baa fadhiistay iyo hadal baa fadhiistay waxaan u sheegayaa inay joogaan halyeeyadii iyo raggii ka dhacsaday ee dhiiggooda u uray ee dhebiga u qoray inay maantala taagayin baan u sheegayaa waxaynu u sheegaynaa da'yarteenna halkaa taagan iyo qof kasta oo reer somalilanna inuu u diyaar garoobo inaynu mar labaad nafteenna huro oo aynu halkay joogaan ugu tagno hadday hadalka day waayaan soo diyaar uma hintaa soo diyaar uma hintaa waxa weeye waynu iska saamaxnay dhibka inoo geysteen baynu saamaxnay weli haddana wayna soo hadalhayaanay soo socdaan walaalayaal waxaan leenahay adduuweynaha waxaan u sheegaynaa iyo maxaan ku dhahdaa caalamka waxaan u sheegaynaa nimankaasi dhibka inoo geysteen iyo dhibaatada inoo geysteen cidna ugamaanaan dacwoon waanu iska daynay hadday maanta taalla yimaadaan waxaan leeyahay war nimanka halkooda aynu ugu tagno oo iyaynaan ku wada hadalno dhulkeenna aynu dhulkooda ku wada hadalno ballankeennuna wuxuu yahay inaan u diyaar garoobaysano difaacayno somalilan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan imkana ku soo dhowaynayaa safiya cabdi ismaaciil ku soo dhow safiya markii beebeegayo biimlay rakibay suxuula dheeraha markee ayar la isku simay warsoo qabiya qawracmaan tay qisadu ahayd kuwii tawxiidka iyo tira loo cuskaday cadowta laabshowada ku tusmaynaya calankan tawxiidka leheed tirkaada ku yaal kuman bawcaga beelay kuman bacarada u galay kuman ba cidhibkiisan joogo cadaawe suga waryaanu dheelina dhede badaa loo xaslado somalilan saaka ma soomaaliya ay ka mid tahay waa maya somalilan saaka ma soomaaliya ay ka mid tahay waa maya ilaahana siiya unooga yeelsiiyaan cadawa u quuso somalilan baa nala idhaa ingiriis baa xadkayagiina siiyey qaran gaaraanu nahay ilaahay mooye cidaanu cisaynayna iyo cidaanu hoos fadhinaa toona ma jirto waxaanu ilaaha ku mahadinaynaa inta halkaa joogtaa waa intii halganka dabadii dhalatay boqolkiiba 95 alxamdulillahi rabbilcaalamiin dubay baynu taageeraynaa dowladda islaam dubay heshiiska dubay baynu taageeraynaa dowladda dhalatay muuse biix cabdi baynu taageeraynaa walaalayaal waxaa inoo sharafa inaynu maanta halka ku muujinno geesinimadeenna iyo kalsoonideenna iyo qarannimadeenna iyo jiritaankeenna iyo dadnimadeenna iyo dhaqankeenna iyo diinteenna suuban walaalayaal cidda hanjabaysa cidda og inay somalilan gooristaageeda aan muujisay uma joojinayno cidna ka baqi mayno cidna ka baqi mayno walaalayaal waxaynu muujinaynaa geesinimada madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane mujaahid muuse biixi cabdi oo ah orodyahanka moy faarax la tartamay ka badiyey cid kalena uma joojinayo madaxweyne buutiinar ku jira madaxweyne gaadhi lagu ilaalinayo madaxweyne aan soo dhaafin madaxtooyadiisa iyo aqalkiisa uma joojinayno walaalayaal maanta cudidda somalilan
ومن مقدسة عيدا مدى قرنكا عيدا مدى بوليسكا عيدا مدى أسلوبتا عيدا مدى سردونكا عيدا مدى قرنكا كالدول لمان حدودنا أي موجينيان جوسيدانكينا آد بين وقمها مدننا ولا ريال waxaynu halkan ku muujinaynaa oo ay maanta halkan u taagannahay cid kasta oo dibidaabiyo ku haysta jamhuuriyadda somalilan inaynu tallaabo ka qaadno oo aynu u muujino qadiyaddeena iyo goonisitaankeena iyo madax bannaanideena walaalayaal maanta somalilan kalsooni bay qabtaa dawlad dhisan oo xooggan oo ciidankeedu dhisan yahay oo shuruucdeedu dhisan tahay oo sharciyaddeedu dhisan tahay oo dhammaan shuruucda ay dawladdu dhisan tahay ay u dhammaystiran tahay walaalayaal cid allaaliya ciddii doonaysa inay dibidaabiyo ku samayso waynu ka soo horjeedaa soo kama soo horjeedo somalilan soo kama soo horjeedo dekadda berbere yaa leh somalilan yaa leh wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu allahu akbar somalilan ha jirto ha waarto calanka tawxiidkani ha jiro ha noolaado madaxweynaheennu ha noolaado jamhuuriyadda soomaalilan eer barakaysani ha noolaato walaalayaal maanta anigu aad baan u cadhaysnahay aad iyo aad baan u cadhaysnahay maa seexan xalay iyo habeenadii ku xigay midna erayada ka soo baxaya ninkii aabbahay dilay anigana i duudsiyey erayada ka soo baxaya maanta ee ka soo burqanaya dadkii ziyaad barre ninkii ina xasuuqay ninkii dabadhilifkiisa ahaa ee in adeerkii ahaa hadallada ka soo baxaya ayaa walaal ka seexan waayey mujaahidiinta eslam ha noolaato agoomahoodu ha noolaadaan allahu akbar walaalayaal dadweynaha sharafta badan ee maanta halkan isku soo baxay anigu waxaan u dardaaramayaa kelmad ninka laga dhex hadlaya ee khayre sharre la yidhaha sharre ninka la yidhaah ee dabadhilifkiisa walaalayaal waynu iska celinaynaa inama yaryar oo ardaya oo dugsiyada dhigta oon baloodh lahayn oon daar lahayn ayaa halkaa ka baxay dugsiyadii iskaga yaacay markii hablahoodii lagu hor fuulay markii la xasuuqay ayay iyaga oo keligooda ayay cadowgoodii dhulka soo dhigeen halkaa suuqa Hargeysa 11 ninan oo 200 nin yaryanayo oo dhaawacooda iyo meydkooda midna qaadanayn ayaanu goobjoog u ahayn kuwiina xasuuqay ee xabaalaha inagu guray ayaa maanta ina duudsiyey 700 milyaar oo dollar ayay nafteennii iyo maalkeennii maanta xisaabtii la wadaa maynaan weli xisaabteennii maynaan dhammaynin hadday xaqeennii bixin waayaan dagaal baynu ka xignaa allahu akbar somalilan waxay ahayd qaran jira wuxuu yahay qaran jira cidna loo sheegi maayo halgan dheer baynu soo marnay halgankii dhammaystirkiisii waxaa ka hadhay inta aqoonsiga la soo qaadayo ummaddaas soomaaliyeed hadday tahay mareexan hadday tahay hawiye hadday tahay cid walba innagu reer aynu ishaynaa somalilan ay ishayaan ma jiro shalay waxaynu ishaynay sistamkii afweyne maantana inankaa yaree farmaajo ee odaygaasi adeerka u ahaa baynu ishaynaa miyaynu daarood necab nahay miyaynu mareexan necab nahay afweynaynu shalay ishaynay maantana inamadaa yaree beenta sheegaya baynu ishaynaa markaa ardayay dhallinyaroy halgankii la soo maray ee dalkan lagu xoreeyey idinka ayuu idin sugayaa reer aynu la collahayna ma jirto nidaammaynu islaynaynay nidaamadii aynu islaynaynayna weli way jiraan allahu akbar somalilan mid calaacasha oo ciddaba fadhiista miyay tahay wasalaamu calaykum allahu akbar somalilan ha guulaysato maanta ninka ku kaaja ee ku dhaxaara baybayga ku dhaxaara ee u ooyay isaga iyo carruurtiisu ee maanta ina koolayna yaqaano oo shalay tahaan cadiryanay waxay naga sheegayaa de malaa wuu isbedelay xasuusba male caqlina male maanta innaka haddaynu maanta reer somalilan ciidan qaran baynu leenahay quwad baynu leenahay waxaanu nahay dawlad calan leh waxa weeyaanu kuwaanu ku nacnay
كدوني ماينو محاد نقول لودي محانو كاسدنا وانو كنا عني سومالي هقول ليستو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر سومالي لا هنولاتو dadweynaha reer Soomaaliya ha noolaadaan ha midoobaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaynu ka rajaynaynaa nabadgelyada uu ina siiyey in ilaahay inoogu wado intaa kadib waxaan leeyahay hadallada ka soo yeedhaya dowladda taagta daran ee daciifka ah ee arxandarrada ah ee indhala'aanta ku socota waxaan leeyahay waa habartii xaabada qaadi kari weydee tiri ii soo kordhiya maamulkiisa hortuu ha ka dhiso muqdisho gudaheeda ha wada hatiyo baan leeyahay markaasuu cid kale mataqaanaa ama u soo hajabi karaa ama odhan karaa waxyaabahan ka xanibaya dalkeenna iyo dekedaheena iyo madaaradeena iyo sarifkeena iyo isutashigeenna innaga iskale waxaanu leenahay dowladda soomaaliyeed halkaaga allaha kugu badbaadiye hortu adigu gudahaaga dhaq oo astur oo adigu ismeele oo adigu hortu xornimo qaada baanu leenahay Soomaaliland 19 ayay xornimo dhaba qaadatay waxay la soo noqotay haashim lixdankii ka luntay ayaynu la soo noqonay allah inoo badbaadiyo uudayda qaylada kuwii ku istareexaye waxay maanta ii daba ordaan waa u caqlilaan nimayahow kala qusaday qoomanaada waxaan leeyahay marka hore dadka waa iga wada salaan ka bacdi nin baa wuxuu yidhi hallo waa iga dood hallo waa iga deeq hallo waa iga dardaaran hallo waa iga dood buu yidhiyo wuxuu yidhi ninkuu yidhi sinaan mayno adna buri sarrayntiisa sadka waa wadaagtaane ma 9 baa tiisu sadka waa wadaagtaane ma 9 baa tiisu ninka xamar jooga ee waxaa madax iga horraysay iyo mas-uuliyiinba ay ka qayliyeen ee ay sheegeen ee beebeyga lagu ilaaliyo maanta ushaasi waa tii jannada ciidanka anigu maayil ku-xigeen xildhibaanaha oo la doortay baana waxa gacantayda ku kalifay inaanu ulihii ciidamada qaadanno waa dagaal weeye waxbaanu iska celinaynaa hadday xabad noqoto iyo hadday af noqotoba Soomaaliland maanta waa alxamdulillah siduu madaxweynaha iyagu sheegay annagaa nabadda jecel waxaanu dooranay madaxweynihii sidii maraykanka ku dhex aqriyaya diyaaradaha wax annaga madaxweynaha iyagu diyaaraduu raacaa diyaaradda dhexdeedu wax ku aqriya halkuu isaguna baybeyga wax ku dhex aqristo waxaa noo jooga madaxweynihiis ee Mo Faarax la bartamaayey madaxweyne dhalinyara oo hadday wada yaacaan ka dheeraynayaanu leenahay waxaanu leenahay madaxweynihii dabka noo galay dabka maalintay darnayd ee uu qaasin lahaa heeryada rag baa kaaga hubi iyo baaruud xabad baanu ku helnay qori caaradii Soomaaliland xabadna waanu ku difaacaynaa maantana anigoo hadalka soo gaabinaya waxaan leeyahay nin baa gabiyo wuxuu yidhi masalaha nimaanii dhigayn midig ma siinaayo ninkii aniga iga maarmi karaa uma muraad yeesho Soomaaliland waa muqaddis Soomaalilandnimaduna geed dheer iyo geed gaaban buu u fuulaynaa itiraafkiina insha Allah taala madaxweynaha iyagu imaaraadku kala soo noqonaya Soomaaliland waan difaacinaa Allahu akbar Soomaaliland ha noolaato ha guulaysato Allahu akbar waxaan leeyahay shacbiga Soomaaliland waxay codday ku leeyihiin laba qodob qarannimadayadu way taagan tahay way taagnaanaysaa cid oo istaagi kartaana ma jirto Soomaaliland cid walba heshiis bay la galaysaa wixii ay danteeda u aragtay inay galaysaa qodobka labaad waxa weeye waxa socda dhaqdhaqaaq lagaga dhaafayo deynta Soomaaliya wixii la isku oran jiray deynta la qaatay ee ay Soomaaliya qaadatay waxa weeye waa hubkii lagu xasuuqay shacbigan ummadda Soomaaliland waxay qaylo dheer leedahay hay'adaha xuquuqul insaanka ay maftahay qayb ka mid ay wado iyo ummadda caalamka dhan waxay leedahay ma aqbalayno hubkiina lagu xasuuqay iyo deyntii loo qaatay in maanta laga dhaafo in laga xisaabtamaa ka horaysa waxaan leenahay haddaan laga xisaabtamin taa maalin walba inay baa loo soo geli doonaa aad baa u mahadsantihiin soo gaabinaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waxaa halkan aynu isugu soo baxnay inaynu dareenkeenna ku muujinno sida aynu u barbar taagannahay
xukuumaddeenna uu hoggaaminayo madaxweyne muuse bixi cabdi iyo heshiisyada caalamiga ah ee ay xukuumaddeennu la gashay dawladaha adduunka waad og tihiin dadkii af soomaaliga ku hadli jiray ee laysku odhan jiray soomaaliya waxaynu ahayn ciddii ugu horraysay ee xornimo qaadata waxa aynu raadinnay riyadii la odhan jiray shanta soomaaliya waxa aynu la midownay soomaaliyadii talyaanigu uu gumaysan jiray 1960kii innagoo raadinayna magac soomaaliyeed waxay nagaga timi dhibaatadii ay ku baaba'een dadkeennii ee magaalooyinkeennii ay ku dumeen ee lagu laayay dadkeennii ee lagu xasuuqay ee diyaaradihii dawladdii soomaaliya ay maatadeennii iyo guryaheennii duqeeyeen waxaynu la soo noqonnay xornimadeennii 1991kii ayaynu dib ula soo noqonnay xornimadeennii halkaasay ku baaba'day riyadii la odhan jiray shanta soomaaliya waad ogtii shantii soomaaliya jabuuti waa dawlad xora soomaali galbeedna waxay ka tirsan tahay dawladda federaalka etoobiya NFD-na waxay ka tirsan tahay dawladda Kenya Somalilandna waa dawlad madax bannaan oo xornimadeedii la soo noqotay 1991kii Soomaaliyadii Talyaanigu gumaysan jirtay xor ma aha maanta waxa gacanta ku haya ciidamada Afrikaanka ee AMISOM ayaa gacanta ku haya mana aha weli wadan xora waa wadan loo taliyo waa wadan gacanta lagu hayo oo loo taliyo madaxweynahoodu waxa ilaaliya ciidamada Afrikaana madaxweynaheennuna suuqu lugeeya halku doonaa buu tagaa madaxweynahoodana ciidamada Afrikaana waa ilaaliya Soomaalidu waxay tidhaahdaa ninkii tiisaba daryeelaa tu kala ku dara ina farmaajo xamar iyo Soomaaliya markuu wax ka qabtay uu nabad ka dhigo ayuu Somaliland la hadli karaa waxaan leeyahay kelmadda aan ku soo gabagabaynayaa waxa weeye ina farmaajo waxaan u sheegayaa ciidamadii Soomaaliya oo siyaad barra samaystay adeerkii ee ahaa ciidamadii ugu xoogga badnaa Afrika waxaynu ka saarnay waddada Garowe ka baxeen iyagoo bayhoofo kabna lulaya kabna laalaadin isaguna hadduu joojin waayo aflagaadada iyo darrada uu wado dhirbaaxadii adeerkii ku dhacday unbaa ku dhici doonta halkii baanu ka bixi doonaa waxaan leeyahay adiga oo lagu ilaaliyo ciidamo Afrikaani ku ilaaliyaan maanta Somaliland inaad soo farafarayso adiga ayay kugu tahay edeb darro wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh allahu akbar allahu akbar allahu akbar Somaliland ha noolaato qarannimada Somaliland ha jirto oo ha joogto xafladdu kuma koobnaa beerta xorriyadda ee caasimadda Hargeysa jamhuuriyadda Somaliland dhammaanba gobollada iyo degmooyinka dalka munaasabaddan waa laga qabanayaa waxaana loo qabanayaa oo ay dadkaasi isku soo baxeen oo taageerayaan heshiiskii saddex geesoodka ahaa hadalkii ka soo baxay ee uu yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland iyo ansixintii golaha wakiilada ay ku ansixiyeen heshiiskii saddex geesoodka ahaa intaasay ummaddu isku soo baxday inay garab taagan tahay waxaa kaloo isku soo baxday inay ka jawaabto hadalladii ka soo yeedhay farmaajo iyo dawladdiisa taagta daran ee xamar hostajka ugu ah ciidamada AMISOM iyo dhammaan muxuu ahaa xubnihii isku sheegga golaha qaran waxay yidhahaan golaha shacabka ee yidhi waxaanu joojinay ama tirtirnay heshiiska Somaliland iyo DP World miyay joojin karaan maya miyay wax ka sheegi karaan maya miyay awood ku leeyihiin maya farmaajo wuxuu isa soo dhex taagay labadii nin ee xukunka ugu horreeyay isaga waxa weeyaan xasan sheekh iyo sheekh shariif wuxuu yidhi dawladdii siyaad barre waxa ku xigta tan maanta la ii doortay labadii nin ee ka horreeyeyna hareere ay ka joogaan isaga iyo adeerkii Soomaali waxay u geystaan waynu ogsoon oo siyaad barre u geystaan Soomaali guud ahaanba gaar ahaana reer Somaliland wuxuu soo tafaxaytay inaan kala yidhaa farmaajo
innagoo 28 sano qarannimadeenni haysanay oo horumarkaa gaadhnay dawladnimadeennu taan tahay adduunkana la macaamila inuu yidhaahdo kii adeerkay idiin geystay baan idiin geysanay oo dagaal baan idinku soo qaadayaa shalu garawey noo soo joogsaday sow maaha socodkiisa iyo muxuu hadafku lahaa muxuu yahay inuu Somaliland dagaal ku soo qaado sow maaha innagu taa maxaynu ka yeelaynaa waynu ka dagaalamaynaa sow maaha cid hadiyadaysan mayno xaashaa lilaahi laynagamana filaayo laakiin ciddii soo doonata madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu yidhi dagaal baad ku dhawaaqday anina waa ku sugaynaa soo sidaa maaha xadkeennaynu ku sugaynaa ciddii noo timaada ninna gurigiisa ugu tegi mayno aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaan idin leedahay noolaada qarannimada aynu ilaashanno ciidamadeennaan isgarab taagno soo sidaa maaha waad mahadsantihiin geesta kale dadkii ka qayb qaadanayay isu soo baxa ballaadhan ay ku muujinayeen dareenkooda inay ka soo horjeedaan hadallada ka soo yeedhaya maamulka taagta dareen ee Muqdisho ayaa iftiimiyey aragtidooda ku aadan heshiiskii ay xukuumadda Soomaaliland la gashay shirkadda DP World waxaana iftiimiyeen jiritaanka qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo oo duray maamulka taagta daran ee Soomaaliya dadkayga aad buu maanta u kacsan yahay horena wuu kacsanaa anigu waxaan ka soo maray dhibaato aad u badan waxaan ka Soomaaliya waxaan ka soo qaxay waxaan ka soo qaxay Togdheer hortayda waxa lagu dilay ninkaygii odaygii la oran jiray kubada aysan jiray Alamsi hortayda mindi baa lagu galiyay ilmo bisad halkii lagu laayay lagu xirxiray ee odaygayga la isku xiray inanta maanta saddex dhalka ayaan caloosh ku siday marka anigu aad iyo aad ayuu xanuunkii aanu wali iga bixin marka la igu soo qaadana waa la farfarayaa marka maanta farmaajo markuu yiri waxaan doonayaa Somaliland inaan la aqoonsan inaanay xor ahayn inaanay madaxweyne lahayn maanta anagu madax maanu leenahay madaxweynaanu leenahay waan xor baanu nahay berberada anaga u talina oo Somaliland aniga Raxmo Sheekh Axmed waxaan ka hadlayaa hadal ka qaraad ay Somaliland ay ku soo ay u soo jawaabayaan waanu diidnay waan dooni mayna xamar waxay nagu sameeyeen ay naqaleen oo maalin walba roob ka daa ayaa soo saara ragii isku xidhxidhnaa caruurtii isku xidhxidhnayd xabaal wadadeerka soo wada saara roobkii daaba maanta haddana aqli ma laha ma xisaabtamayaan ma laha oran maayaan dadka hadlayseen waxba ka daba soconina isma laha aqli yeesha dheh maskax yeesha dheh berbera waxba idinkama cabayaan wixii aad barateen berbera iyo dadkeedii baad isku darsateen maanta aqli baanu leenahay sidiina uma aqli xumin waanu idin nacnay السلام عليكم magacaygu waa Sharmaarka Cabdi Aadan Sharmaarka qalbi cade waxaan dareenkayga maanta kaga hadlay waxa weyn dawladda farmaajo waxay ay maanta afkeeda ka leedahay biri bay qaban doontaa waayo wixii qoran baa qurma jiray muxuu qiimeeyay baa hore loo yiri faantay annagu waa rataad maanta arkaysa rag baa kadeedu cabay hadda adduumooday maanta inuu dheeldheer ku soo gali karo markuu imaadaan ragno walaal magacaygu waxa weyn Sayd Yaasiin Axmed waxaan leeyahay dawladda Soomaaliya ka talisa ee madaxweynaha ka yahay farmaajo ninka madaxweynaha isku sheega waxaan leeyahay garashadu haday ruux la tahay suu garanayo garaadkiisa suu qaba hadii loola garan waayo garda ruu qaataa ninkii yiri garaadkiisa ee hashan gaadaweyno libaax uga gadoon waayay inaan goroyo cawl uga haro waa har soo guray quwadii labaad ee Afrika ayay Somaliland wadan maxaan ku raayay rag mujaahidiin ah oo islam la yiraahdo ay gacantooda ay ku jabiyeen quwadii labaad ee Afrika adiguna farmaajo adigoo al-shabaab ka adkaan la oo al-shabaab u talin la oo amisom ku ilaaliso kugu ilaaliso container iyo gaari jiiba oo ku qufnato suuligi kugu dhex yaalo inaad maanta tiraadid maxaan ku raay midnimadaas maxaan ku raay Soomaali waa mid heerade horaba waa loo waaytaa ha ku riyoonin hana ku soo jeedin habeena ha ku saxan in Somaliland ku biirto Soomaaliya qadiyada Somaliland waa muqaddis Bismillahir Rahmaanir Rahiim magacaygu waa Minawal Cabdi waxaan ku hadlayaa dhalinyarta Somaliland waxaanan u dhashay dalka Somaliland waana ku dhimanayaa waana ku dhalayaa waana ku dhaqayaa waxaan markaa waxaan leeyahay maanta dareenkayga aan cabiraya aad iyo aad baan u faraxsanahay maanta anigoo dhex tooga halbowlihii Somaliland waxaan u sheegayaa dalka shisheeye war Somaliland way tashatay war Somaliland way dhaqaaqday wax dib u soo celiya ma doonayo horay u sii socota waxaan u sheegayaa farmaajo war anaga madaxweynaha iyaga Muuse
bixi suuq waan ku aragnaa saalkaas la socda shicibkiisu la fadhiya oo la sheekaysta annagu ma doonayno nin lagu ilaalinayo ganjeel oo la ilaalinayo la daba joogo mana doonayno annagu Soomaaliland wixii caqalad ku noqdana annagu waan ka soo horjeednaa anigu waxaan leeyahay Soomaaliland ay sifo waxa magacaagu sifo waxa uu leeyahay taariikh sugnaydo soo jireen ahayd buu xusaya ninkii ka diidana isaga cagta wadada saaraya anigu waxaan u sheegayaa war Soomaaliland waa dad jira war waa dad nool war dhiig bay leeyihiin war way tashadeen inta Soomaaliland eegaysan tiisa madaryaala ku kala ku dara nin gurigiisu gubanaya guri kale ma baqtiyo waana ka xaaraantaasi marka anigu waxaan u sheegayaa Soomaaliya iyo intii kala kur soo raacsanba Soomaaliland waa dad jira waana dad isjecel waa dad isku tiirsan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta idil ahaantii badawadayaal waxaan intaasi ku soo gabagabeynaa barnaamijkaasi gaarka ah ku soo qaadanay isu soo baxa ballaarin ay sameeyeen dadka ku dhaqan caasimadda Hargeysa ee ka dhacay beerta xorriyadda caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee magaalada Hargeysa barnaamijkan mid lamid ah mar kale ku kulmi doono waa muuqaal duubidii Cawil Cabdi Kaahin habeyntii isku soo dubaridkii Cabdiqaadir Cabdilaahi Nuur Almis iyo asxaabta kale ugu helisay waxaan ku dhaafnaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Somaliland وحرولي تبغوا إيريو تسولي تكون حمدي بجوبا حمر وقطاري مايو حدوثي لدى بقولين حنوكي مال اللاوين حدوثي لدى بقولين حنوكي مال اللاوين نكي إسرائيل يوم أسوق دبيالي مينو